shirkan oo looga hadlayay xasilinta amniga Soomaaliya ayaa waxaa shir gudoomiyay wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Maxamed Sabriye waxaa joogay duqa magaalada Muqdisho madax ka socotay dowlad goboleedyada mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya wakiilo ka socday beesha caalamka iyo saraakiil kale shirkan oo muddo saacadaha socday ayaa waxaa aad looga hadlay sidii loo xoojin lahaa qorshayaasha kala duwan ee lagu xasilinayo amniga dalka iyo badbaadinta shacabka iyadoo madaxdii ka socotay maamul goboleedyada dalka ay soo gudbiyeen qorshayaasha ay u diyaariyeen arrimaha amniga iyo horumarinta adeegyada asaasiga ah duqa magaalada Muqdisho mudane Injineer Yariso oo shirka ka hadlay waxa uu sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu wado dadaalo lagu xasilinayo amniga caasimadda oo hadda meel wanaagsan maraysa iyadoo lagu guuleystay fashilinta ficilo argagixisnimo iyo kuwa amniga lid ku ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Maxamed Sabriye waxa uu shir ka sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka go'an tahay xasilinta dalka iyo badbaadinta shacabka waxa uuna baaq nabadeed u diray Somaliland iyo Puntland in ay joojiyaan colaadda ka taagan deegaanka Tukaraq shirka ayaa markuu soo ilaaday waxa warbaahinta qaranka la hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineer Yariso oo sharxay muhiimadda guud ee shirkani muhiim ayuu ahaa oo looga hadlay dhammaan dalka oo dhan ka soo qayb galeen dowlad goboleedyada annaga maamulka gobolka Banaadir ahaan waxaan hor dhignay qorshayaasha sugidda amniga caasimadda waxaan kaloo warbixin ka siinay xaaladda magaalada Muqdisho ha noqoto roobkii dhawaan da'ay iyo dhibaatooyinkii geysteen ha noqoto arrimahan barakacayaasha oo runtii aan xal u wada raadinayno intaas ka sokow waxaan hor dhignay qorshayaasheena ku aadan xasilinta oo ay ka mid tahay sida degdega ugu baahannahay in istaadiga Muqdisho loogu soo celiyo gacantii dhalinyarada si kubadihii loogu cayaaro isla markaana dhalinyarada uga faa'iidaystaan intaas ka sokow maamulka gobolka iyo horumarka uu sameeyay 4 bilood oo ay ka mid tahay dejinta maamulka iyo nidaamka hirgelinta adeegyada bulshada asaasiga dhammaan warbixinadan waa siinay waxaan rajaynaynaa shirarka dambe in ay hay'adaha caalamku runtii diirad gaar ah siin doonaan magaalada Muqdisho waxaan u sheegnaa aragtideena inay tahay in Muqdisho ay ku soo noqoto sidii barnaamijka ahaan jirtay magaalo amni ah nadiif ah shacabka Soomaaliyeedna caasimadoodii u ah waa mahadsantiin Nuur Saciid Taaliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho